Mkutano. Guide teachers on education matters. Anything concerning education, it is work of the teacher to guide the teachers what they are supposed to do. Are we together? The other one is to ensure that learners follow the school rules. We have the school rules. Like number one, you're not supposed to make noise in school, come to school early, no fighting, no stealing, no carrying mobile phones to school. Those are some of the school rules. Are we together? Do you know them? Now, after the death of Osman, Ali was the one who inherited from Osman. So there were some people from the Umayyad family who went against Ali. So there was a revolution between the Umayyad family and the Hashemites. Hamjambo wanafunzi. Katika somo letu la leo ama zoezi ambalo tumepewa pale, umeambiwa uandike barua kwa mwalimu wako ukimwelezea sababu ambalo lilikufanya usiende wapi shuleni. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Walaalaha sharafta badan oo soo dhawaada, Allah ini barakeeyo. Waa barnaamijyadeeni xagga waxbarashada aan ugu guurkalaynay. Maanta waxaa sharaf iyo farxad inoo ah inaan la fadhino oo aan agta ka fariisanay mudiirka ama maamulaha Sangate Educational Center oo xaruntiisii aan maanta ku sugannahay. Waa ninka caanka ah ee iska leh milkiilaha ka ah Xasan Buule Faliir. Ustaad oo ku soo dhaweynaynaa, Allah ku barakeeyo. gacmo furan ku soo dhawo marka hore Safirka Islaamka Media. mahadsanid, jazakallahu khayr. Allah ku barakeeyo. Ustaadii waxaan rabnaa inaan kaa wareysano Sangate marxaladuu soo maray, goorta la furay, ku soo dhawo noo sheeg goorta furteen marka hore. mahadsanid. oo Sangate wuxuu furan yahay muddo taqriiban 19 sano, 2006 ilaa hadda furan yahay. waa school waxaan filayaa xaafadan hadda isla markii laga hadla iskuuladii ugu horeeyay inuu yahay, dad badanna soo saaray, xarumo kala duwan oo badan xaafada ku leh. maasha Allah ku barakeeyo. waqtigaas asteen meeshan baa ku bilowdeen mase meelo kale aad kusoo bilowdeen jira? askiisii wuxuu ku bilowday meel iska yar, base campaign ahayd, kadibna wuu fuday, baahidii waxbarashada badatay. marka macallimiin aniga oo hadda iskuulka hogaamiya oo aan maaragtay ilaa waqtigaas anuba gacanta ku hayay, sidaas daraadeed uu fiday, meelo badan buu gaaray, heer xataa aan wadanka Canada ee gobolka Alberta aan ka furnay branch kale aan istaajinay. maasha Allah. iskoolka dabcan markuu furmayo xogaa culaysyo badan aan soo food saaraya oo xagga barashada dadka ay bartaan oo iskoolka la yaqaan ah. marka maadaama marxaladii marka waqtigaas ay jiray 2006 aad leedahay aad u adkaayeen, dadkuna yaraayeen, dib ku soo wajahay oo aad ka wada weysay shaqada ma jirtaa? dabcan markii waxbarasho laga hadlayo iyo wax kastoo la bilaabayo culays bay la kulmaan, laakiin culayska qofkii hadduu waxa taqaquskeedii leeyahay ma dhibaan. bulshada wixii dhibo waxa waaye qofka haduusan wixii garanaynin, tusaale qof aan macallin ahayn macallin hadduu noqdo way ku adkaanaysaa inuu shaqadii wadaa. wixii haddaad khibradeeda leedahay, experiencegeeda leedahay, way ku fududaanaysaa. waxaan isfilahayaa ilaa waqtigii hadda iskuulka aan furnay ilaa hadda, of course cilado way jiri, laakiin in aan ka gudbaynay annagoo kaashanayna cilmigeena. waayahay ustaad, ardada hadda dhigata iskoolkaaga cadadkiisa waa imisa? hadda ardada joogto 300 anigu hadda joogto. maadooyinka lagu barto aad bixisaan waxay noo sheeg. maadooyinka lagu bara qaybta high schoolka waa qaybtan AGC-ga ee UK systemka, British systemka, oon anigu taqaquskeeda leedahay, oon wadamo badan aan ugu soo bartay. marka high schoolka waa qaybtaas labada, waana 2 sano waqtiga lagu barto,
durationkeeda waana high school diploma qofka ku qaadanaya. qaybta kale xigto waa qaybtan primaryga systemka Kenya class 8 loo yaqaano class 1 up to class 8 Soomaalidan ay dhahaan dugsi hoose dhexe laakiin Kenya markaan fiirino curriculum ahaanka waa primary. waayahay dowladda waa hoos tagtaan Soomaaliya marka hadda intaas dhigsiin actually wasaaradda waxbarashada waddanka Kenya waa qasab ardayga uu imtixaan sameeyo wasaaradda inuu maro waaye. wasaaradda kalena waa ku xiranahay hadda imtixaankan systemkan IGCSE-ga waxaa laga xukumaa UK marka systemkaas wasaaradda Kenya unbaa maamusha oo qaybta imtixaanaadkeeda NEC Kenya National Examination Council qaybteeda kalena examination bodygeedana waxaa iskale UK baa iskale waa ku xiranahay. waxaa kaloo jira qayb kaloo hadda kusoo kordhinay oo manhajka Mareykanka iyo North America laga isticmaalo GED baa la dhahaa General Education Diploma oo iyagana kusoo darnay hadda adiga muddo adiga 6 bilood ah insha Allah tacaala hadda socdaa jira oo arday ay diyaarinayaan imtixaankiisii oo qofka asagoo waddankaas joogo uu shahaadadiisa qaadanayo uu la mid noqonayo hadhow wadamadii markuu tago maaragtay Soomaalida badanaa waa dad iska reer guuraa ah dhoof iyo waxaan isaga xisaabtama qofka markuu asagoo inta joogo shahaadada uu qaato xagga inuu jaamacad galaa u fududaanayso saas daraadeed baa marka baahidaas baan u daboolnay iyadan. waayahay iskoolka magaciisa aan usoo noqono xarunta waxbarashada ee Sangate macnaheeda af Soomaaliya haddaad noogu sheegtid. Sangate san horta waxaa waaye waa aftiin waan gartay waa dhalaalka qoraxda waa san marka laga hadla qorax waa aftiin. gate marka laga hadlayo waa albaab marka iftiinkii albaabkii furnaa ee waxbarashada maasha Allah marka laga hadlayo saas waa isla magaca ku bilowdeen mase waa ka bedeshay waan bedelnay iskuulka waaga hore magac leeyahay compete baan ku bilownay kadib baan adigu bedelnay aniga muddaan maqnaa oo waddanka maqnaa waxbarasho dibadda aan ku maqnaa marka iskuulkii xoogaa yara halaabay baan imid dib baan marka u hagaajiyey magacaan damba saasoo ku imaaday. dardaaranka ugu dambeeya bulshada Soomaaliyeed u jeedinaysa macallimiin ha ahaato arday ha ahaato waalidiin ha ahaato fariintaada ugu dambeysa. horta waxaan filayaa tusaale hadda xafadan aan joogna oo islii markii laga hadlaayo problem waxbarasho haysata dhibo badan baa ka jira waxaa ka mid ah ardaydii midda ugu dhibka badan waxaa waaye akhlaaqiyan hadda saaka iskuulkaad ku dhex jirteen waa dareemaysaan ardayga horta waa in la bara inuu wax qabsan karo noolaan karo kowna waxay noqonaysaa qofka akhlaaqdiisa hagaagta iyo cilmigiisa hagaagi karaa. xaafadda waxaad arkaysaa iskuulle iska furan laakiin lacag uun isaga furan in iyagii wax laga helo laakiin intake uusan ardaygii lahayn. ardayga aniga hadda markuu ii imaanay iskuulka shuruudan ku qaata waxaa ka mid ah kow akhlaaqiyan horta inuu noqdo qof u saxmayo waalidkiisna warqadii saxiixaan asaga uu saxiixo kuna qancaan ardayga akhlaaqdiisa hadaan ku qanci weyno in uu iskuulkii laga saarayo. marka waxaan isleeyahay inta hadda aniga ila joogto inaan ku dadaalo dhinacii akhlaaqda ardayna fiican ay soo baxaan ay bulshada anfacayso sababtoo muhiimadda macallinku sharaftiisa waxa waa inuu ku faani karo arday uu soo saaray ee wax qabsanaya markuu arko taasaa la dhihi karaa macallinku waa macallin. marka waxaan filahayaa hadda xaafadda iskuulla fara badan baa ka furan waxyaala waa jiraan iskuulla dadaalaya laakiin akhlaaqda qof kasta mas-uuliyad baa ka saaran ee macallin ah sababto ruuxu markuu macallin noqdo hadduu macallin ah uu noqon lahayn xaafaddiisa ku ekaan laha laakiin bulshadiiba hadduu mar hor istaagayo in dadkii akhlaaqdoodii si cilmigooda u saxmo akhlaaqdooda la saxo arrintaas iyada ay qolo kastaba ka qayb qaadato oo tusaale anaga gabdhihii iskuulka gabdhihii wiilal waa dhigtaan gabdhahana line baan u samaynay wiilashana line baan u samaynay kuraastii fadhigood inaan kala hagaajino
ay akhlaaqooda hagaajino timahooda hagaajino waxaad arkaysaa arday lagu keenayo waalidkaba ay xaafadda wax uga soo qaban waayeen laakiin macallin fiican hadduu helo markuu ku imaado aan saxtamayo oo maqlahayo wixii maqlahayo marka waxbarashada waa muhiim waa furihii laakiin waxaa ugu sii muhiimsan akhlaaqdii especially haddana qofkii diintiisii in la dhiso akhlaaqdiisa la dhiso qofkii uu noqdo then mutually grow with education inuu noqdo gobol baan tagay Canada ka mid ah waxaan ugu tagay arday anaa wax soo baray oo macallimiin iskuul haysato waa wax ku faraxsanahay aad ugu faraxsanahay qofka soo saartay wax noqday markaad arkaysa meeshan hadda aan joogno kuwa badan wax soo baray waa iskuulo kula eegay bala on gacan qabasho iyo wixii waana iyo wixii garab istaag aan ku sameeyaa dadka horto waxbarashada waa nolosha qofka haddii dhagool aad maqashay dhagool waa qof aan waxbaran qofku ilaahay dhagaha tiray maaha sababtoo qof inta wadan tagay gacmaha taagayo taasoo ma dhagool ah marka waxaan leeyahay horto waxa la barto dadka waxa bartaan insha Allah macallimiinta wax bartaan waxaan ugu baaqayaa dadka idin imaan hayo akhlaaqdooda xoog saara si bulshadeena ay u soo baxdo dad barina anfacayo aad baad u mahadsan ما شاء الله الله بركيه intaas ayaan jeclaanay inaan ku soo koobno barnaamijkeena qaaska ahaa oo nagu nimid xafiiska maamulka Xasan Buule Falfaliir intaan dib dambe isaga imaan doono wabillahi tawfiiq wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh